bilowgii xirfadiisa kubadda cagta ayaa iyadoo ay da'diisu aad u yar tahay oo kaliya Mbembe wacdara ka dhigay garoomada la yaabna ma ahan isagoo 19 jir ah in uu xulka Faransiiska kula guuleystay koobka adduunka iyadoo waliba uu ahaa hogaamiyaha iyo kan ugu halista badan ee uu haysto qaranka Faransiisku waqti badan kuma aysan qaadan in loo magacaabo kabtanka rasmiga ah ee xulka qaranka oo uu soo galay sanadkii 2017 iyadoo waqtigaasi da'diisu ay ahayd 18 jir xadigan oo sanadkii hore ee 2022 u deeriyay kooxda Madrid heshiis cusubna gacanta u geliyay Paris Saint-Germain ayaa la warinayaa waqtigan inuu ka shalaynayo qalinkii uu siiyay kooxda Carabtu ay leedahay xilli su'aalahaasi mustaqbalkiisa ay taagan yihiin ayaa waxa sidoo kale miiska saaran su'aalo kale oo la xiriira halka laacibkani uu asalaan ka soo jeedo iyo wadankii ay ka soo tahriibeen waalidkii waqtigii ay soo galayeen qaaradda Yurub gaar ahaan wadanka Faransiiska su'aalahan oo dhameystiran ayaan kaga jawaabi doonaa muuqaalkan ee saaxiib like saar si la mid ah saaxiibadaada la wadaag Kylian Mbembe oo dhashay Kylian Mbembe waxa uu ku dhashay magaalada Bond markii ay taariikhdu ahayd December 20 1998 magaaladan ayaa ku taala qaybta Saint-Denis ee waqooyi bari magaalada Paris waana goob dadka Faransiisku ay ugu yeeraan Benley sababtuna waxa dhiga dadka danta yar ee dawladdu ay kabto ama guryaha dawladda ee dadka masaakiinta loogu talagalay waxa kale oo goobtan ay caan ku tahay dadka liita oo ay aad u yartahay awoodooda waxiibsiga Boni waxa sidoo kale 10 kilomitir u jirta garoonka Saint-Denis Stadium ee hoyga u ah xulka qaranka Faransiiska oo uu tababarka ku qaato Mbembe weligii ma aanu iloobin inuu halkaasi ka soo jeedo magaalada yar ee ku taala duleedka Paris waxaana markii uu ku guuleystay koobkii adduunka 2018 hay'ad samafal oo saldhigeedu yahay halkaasi uu guddoonsiiyay 500,000 euro si dadka halkaasi u caawiyaan su'aasha ugu weyn waa halkee ay ka soo jeedeen waalidiinta dhashay Kylian Mbembe waxa ay ka mid ahaayeen dad badan oo sanadihii 70meeyadii ka tahriibay qaaradda Afrika intooda badan galay magaalada Paris waxayna waalidkii ay doorteen in ay degaan Bordeaux aabaha dhalay Kylian Mbembe oo lagu magacaabo Wilfried Mbembe waxa uu ku dhashay wadanka Cameroon laakiin waxa sidoo kale ay qoyskiisu asalaan ka soo guureen Nigeria waxa uu Faransiiska ku soo galay qaxootinimo kubadda cagtana uu ciyaari jiray inkastoo sidoo kale uu ahaa tababare sanadkii 1990 ayuu Wilfried Mbembe ku soo caanbaxay kooxda AS Boni oo tababare u ahaa xaqiiqada ayaa ah in Kylian Mbembe sidoo kale uu soo ciyaaray kooxdan ka hor intii uusan u wareegin naadiga Monaco Wilfried oo caan ku noqday magaca AS Boni waxa uu hooyada dhashay Kylian Mbembe kula kulmay Faransiiska waana marwada lagu magacaabo Faiza Lamari oo iyaduna ciyaari jirtay kubadda cagta Faiza waxay asal ahaan ka soo jeedaa wadanka Algeria